Hooyadan waxay la nooleed wiilkeeda guri gaar ah ay iskula noolaayeen. Maalmaha ka mid ah bannaanka ayaa loo soo eriyey maadaama ay iska bixin waayeen kirada guriga. Haddaba ayagoo darbiyaha jiifa wiilkeedana uu caasi ku yahay ayaa maalmaha ka mid ah wiilkeedii u imaaday, wuxuuna ku yiri hooyo lacag isii, saaxiibaday ayaa lacag iga doonayee. Hooyadii maskiinta ahayd ayaa ku tiri lacag intee ka keenaa, haraantii caay iyo feer ayuu ka badiyay, wuxuu u reebtana maysan jirin. Hooyadii soo karisay markuu yaraa. Haddaba ilbiriqsiyo kadib wiilkii waxaa jiray gaari. Hooyadiina oohin ayay la jiifatay jidka maadaama wiilkeedii caasi ku ah uu dhintay, laakiinse waa wax dhalay wiilkeedii caasi ku ahaa ay dili jiray. Markii isaga maalintaasi noloshiisa soo gabagabowday, aad iyo aad ayay uga naxday waxa ku dhacay wiilkeeda. Haddaba markaad yareed hooyada quraanjada adoo iska celin karin ayay ku soo korisay oo wixii dhibaato dhan ku soo wajaha ay ka xalin jirtay. Markaa uusid way ku aamusin jirtay. Hooyada markii weynaata ay duqowdo ilma camal ayay noqonaysaa, mana loo baahna inaad ku qosashid dhaqamadeeda maadaama adiga markaa yareed ee aad isku kaadisid ama aan musqusho geli karin may kugu qosli jirin. Markaa uusid may kugu qosli jirin. Waa hooyadeen inaan tan yeelnaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.